asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada sheeko ka mida sheeki libaaxyadii aan halkan idinkala socodsiin jiray sheekaduna waa mid ka mida sheekooyinkeenni aynugu magac darray goormay kugu darrayaad libaaxis aragtaan mid ka mida idinla wadaagi doonaa marka hore kanaalka sabskaraab saar oo ku soo biir oo noqo qofka ugu horreeya uu soo gaadho muuqaalka la soo geliyaa amba sheekada la soo geliyaa sidoo kale janalka waxaa ku jira sheekooyin aad u xiiso badan iyo muuqaalo kale iyagana nala soo daawo oo nagu soo warceli dhammaantiin ku soo dhowaada sheekada boqorka kaynta waxa uu yidhi waxaan ahaa wiil dhallinyaro ah oo sita qori xabada oo AK47 baro ah oo markaa soo baxay soomaalidana markaa ku cusbaa qoriga ayaa aniga laftayda ii cusbaa waa qarnigii aynu soo dhaafnay ee afrika uu soo gaadhay hubka casriga amba qoryaha sida darandooriga u dhaca waa baryihii uu soo baxay qoriga caanka ee la yidhaah AK47 oo ah qori aad u fudud soomaaliduna ay aad u haysan jirtay waxaan marayaa ayuu leeyahay ninkani dhulkii libaaxu uu caanka ku ahaa amba uu joogi jiray waxaannu si kadiisa iskaga soo horbaxnay baha libaaxa waa boqorka kaynta waxaa la yidhi libaaxu waxa uu arko ragga ayuu ugu necab yahay waxa uu cunana ragga ayuu ugu jecel yahay taasi oo laga wado waxa uu og yahay in aanay ragga si dhayala ku kala baxayn ee uu dagaal dhex marayo wuxuuse ka sii necab yahay inay raggu ka guulaystaan amba laga guulaysto haddaba wuxuu yidhi markaan aniga ayaa daandaansaday libaaxa waayo libaaxa ayaan meel fog ka arkay shiishka ayaan duldhigay midh xabada ayaan dhag ku siiyey waayo waxaan ku fiicnaa shiishka amba wax toogashada wax yar ayuu garan waayey meeshii laga toogtay amba ay xabaddu kaga soo dhacday cabbaar ayuu indhaha gedgediyey kadib ayuu isticmaalay khiyaamadiisii uu libaaxu caanka ku ahaa waxuu iska dhigay bakhti amba meyd oo ay xabaddu ku dhacday isagoo hoostana wax ka eegaya mar qura ayuu usha igu dhuftay siduu indhaha u wareejinayey aniga oo meel amba kaga dhuumanaya oo isla midh kalena toogo sida miigga ayuu xaggayga isku soo ganay amba isku soo maqiiqay ayuu yidhi anna waxaan go'aansaday in aan xabadda uun ku furo ilaa inta uu soo gaadhayo aniga oo geed yar kaga gabanaya wuxuu yidhi waxaan ku bilaabay xabaddii ilaa inta uu soo ordayey waxaan islahaa baalka meel halisa ka toogo amba xabadda kaga dhufo sida wejiga dhuunta sanka iyo wixii la mid ah laakiin waxaan kala helayey ambaan xabadda kaga dhufanayey jidhka intiisa kale oo aanu libaaxa xabaddu inta badan waxba ka yeelin amba aanu waxba u arkayn isagoo xabadda aan ku wadana intaa waa igu soo ordayey anigoo xaalku igu xun yahay oo aan isleeyahay bahalku waa kugu dul dhacaya maxaad yeeshaa dhowr jeerna aan geedka kaga meeraystay xabaddana aan intaa la dhacayo bahalkiina uu yarii saaran yahay nasiib wanaag midh xabada ayaan dhuunta kala helay amba aan kaga dhuftay kii xigayna ayaan haddana wejiga ka saaray xataa markuu dhulka ku sii dhacayey waa uu igu soo ordayey bahalku oo waxau islahaa cardaaduqaha ka dhig intaa kadib waxa uu awoodi waayey inuu bahalku isoo gaadho sidaana waxaan kaga guulaystay libaaxii amba boqorkii kaynta oo aan ku khaarajiyey libaaxii oo cadhaysan oo qurub ii kala jari lahaa hadduu isoo gaadhi lahaa laakiin waxaa laga yaabaa markii hore haddii aanan doondoonteen amba aanan daandaansadeen in aanu bahalkani waxba ii geysteen inkastoo xawayaanka laga yaabo inuu dad u noqdo xilliga jiilaalka ee uu oomo amba ay biyo la'aantu dhacdo halkii ayaan kaga goostay dabadii amba amaanad waayo lagaama yeelayn in aad aayars ka tidhaaho maanta waxaan dilay libaax waa inaad dabada lugta iyo wixii la mida amba sanka amba haragga waa inaad libaaxa sidataa si lagaaga yeelo amba lagaaga aqbalo maanta waxaan khaarajiyey boqorkii kaynta oo berigaa soomaalida dad iyo dunyaba waxa uu ku hayay fara xun oo waxay islayn jireen dhayley amba maalin kasta soomaalida ayay fara xun isku hayeen muuqaalka yaree sheekadu intaa ay ku egtahay kanalka mar kale ku soo biir baan ku leenahay haddaad ku cusub tahay sabskaraab saar si aan u soo badino sheekooyinkan oo kale oonu insha allah soo badin doono haddii aad sidoo kale ka daawanayso meelaheena kale Facebook ee Khadar Yuusoomaar isagana flow saaro ku soo biir sidoo kale kanalka waxaa ku jira sheekooyin badan oo xiiso badan iyo muuqaalo kaleba iyagana soo daawo nala soo eego nagu soo warceli dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu